waxbarasho ee dugsiyada maamulka magaalada Jigjiga gaar ahaan dhanka tayadooda iyo natiijada kormeerka lagu sameeyay ee ka dhacay xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya fadhaainta warkana waxa ay noo soo diyaariyay wariye Maxamed Cabdiraxmaan Gaata xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya oo ka duulaya sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada dugsiyada ka jira maamulka magaalada Jigjiga ayaa haddaba si loo helo arday tayadooda aqooneed ay sareyso ayaa waxay si wadajir ah ugu sameeyeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo xafiiska waxbarashada ee heer deegaan kormeer qiimeyn ah dugsiyada waxbarashada ee ka jira maamulka magaalada Jigjiga iyadoo kormeerkan qiimeyntaan ay ahayd mid markaasi loogu kuuragelayay geedi socodka barisbarashada qorshe diyaarinta ciidanka horumarineed iyo waliba tayada waxbarashada ay bixiyaan dugsiyada ka jira maamulka magaalada Jigjiga dugsiyada kormeerkan lagu sameeyay ay kamid ahaayeen dugsiga sare ee Sheekh Cabdisalaam ee magaalada Jigjiga dugsiga sare ee magaalada Jigjiga dugsiga hoose dhexe ee Xuseen Giire iyo waliba dugsiga Wiil ayaa haddaba markii qiimeyntaasi tijaabada ahayd la soo gabagabeeyay ayaa waxay u qabteen mas'uuliyiinta xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya maamulayaasha dugsiyada maamulka magaalada Jigjiga khabiirada iyo kormeerayaasha xafiiska waxbarashada maamulka magaalada Jigjiga iyo waliba agaasimayaasha xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyadoo dulicda kulankan ay ahayd mid markaasi lagu abaalmarinayay dugsiyadii iyagu markaasi kaalmaha hore galay ee qiimeynta la sameeyay isla markaana natiijada fiican ka keenay dhinaca adeeg bixinta geedi socodka barisbarasho waxaana ugu horeyntii kulankani ka hadlay wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya mudane Ibraahim Aadan Mahad oo mahad celin kadib tilmaamay in ujeedada kulankan ay tahay mid markaasi lagu soo bandhigayo guud ahaanba xaaladda barisbarasho ee dugsiyada maamulka magaalada Jigjiga gaar ahaanna dhinaca tayada waxbarashada dugsiyada ay bixiyaan ee kormeerkii qiimeynta ee laga sameeyay dugsiyada ka jira maamulka magaalada Jigjiga ee markaasi natiijadii ka soo baxday dugsiyadii lagu sameeyay kormeerkii qiimeynta ahaa sidoo kale wasiirku tilmaamay in kulankan uu yahay mid markaasi lagu abaalmarinayo dugsiyadii hormuudka ahaa munaasabadan ujeedadeedu ay tahay inaan kaga wada hadalno xaaladda guud ee barisbarasho ee ka jirta maamulka magaalada Jigjiga gaar ahaan tayada waxbarashada iyo sida mataqaana dugsiyada kala duwan ee magaalada Jigjiga ay u bixiyaan adeegyada waxbarasho waxa kale oo halkan lagu soo bandhigayaa kormeer aan ku sameynay dugsiyada maamulka magaalada Jigjiga qaar kamid ah isla markaasna la eegayay dhinacyo kala duwan laga eegayay dhinaca ciidanka horumarineed dhinaca maamulka suuban dhinaca barisbarasho ma garanaysaa macallimiinta iyo tayadooda iyo dhammaan habka barisbarasho ee ka jirta dugsiga marka kormeerka la sameeyay ma ahayn mid la iska sameeyay wuxuu ahaa mid standard u degan wasaaradda waxbarashada ee heer federaal lagu sameeyay isla markaasna guud ahaan laga sameeyo dhammaan deegaanada kala duwan ee Itoobiya ka kooban tahay marka gaar ahaan keenan marka lagu sameeyay sample baa la qaataa maadaama ayna suuragal ahayn in mar kastaba la wada qaato dugsiyada sample kaas la qaatay ayaa wuxuu mar kasta ka turjumayaa dugsiyadii kale nooc ay u yaalaan waayo haddii dhammaan ay fiicnaadaan waxaad garan kartaa in qaybihii kale ee jirina ay fiicnaan karaan markaas runtii natiijada ka soo baxday kolley si gaar ah ayaynu eegi doonaa laakiin hadda halkan waxaan marka ugu horeysa aan rabaa inaan uga mahad celiyo dugsiga Wiil wuxuu muujiyay runtii kormeerkii lagu sameeyay ee ay sameeyeen xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyo kuwii federaalka xubnihii ka socdayba wuxuu noqday model inta kadib ayaa waxa halkaasi lagu abaalmariyay maamulaha dugsiga Wiil abaalmarintan ay timid kadib markii uu dugsigani uu noqday mid hirgeliyay dhammaan baxrimooyinka waxbarashada sidoo kalena uu ka mir dhaliyay dugsigani adeeg waxbarashada ee uu bixiyo haday ahaan lahayd geedi socodka barisbarasho qorshe diyaarinta iyo waliba ciidanka horumarinta gabagabadii ayaa waxaan dhankiisa wareysi la yeelanay maamulaha dugsiga Wiil waxa uu ka warbixinayaa abaalmarintan lagu doonsiiyay iyo waxyaabaha ay ku mutaysteen runaantii horta kulankan wuxuu ahaa kulan ay qiimeeyeen xafiiska waxbarashada heer federaal heer kelil iyo heer council oo isku dhafan ayaa eegayay iskuulka iyo kaygay qaybo kala duwan dhinaca maxaa iskuulka tayada waxbarashada maamulka suuban adrajaajadka ama lima saraawidka wax la yiraahdo waxyaabahaas iskuulada laga qiimeeyay dhowr iskuul oo markaas saambal ahaan loo doortay ayaa waxa noqday iskuulka Wiil oo ah iskuulka maamulaha ka ah iskuul waxyaabihii loogu talagalay la qiimeeyay sidii loogu talagalay uga soo baxa taasoo keentay oo sabab u ahayd in maartay shaqada ay ka qayb qaateen macallimiinta ardayda iyo waalidiinta dugsiga oo maxaa arinta keenay in lagu guuleysto arintaas guusha ugu weyn waxa iska lahaa iyaga
marka wixii loogu talagalay inaan qabanno ayaan sidii loogu talagalay iskuulku u qabtay taasaana keentay